waxay u muuqatay maalin qurux badan. Cabdisamed iyo labadiisa waalid waxa ay wada saarnaayeen gaadhigooda. Cabdisamed waxa laga soo qaaday iskuulkiisa isagoo loo wada xagga gurigooda. Waxay ka sheekaysanayeen dalxiiska iyo farxadda ay soo wada qaadan doonaan fasaxa dhow. Cabdisamed waxa uu u wada sheeko aad u qosol badan labadiisa waalid. Waa ay wada qoslayeen. Ilbiriqsigii xigay waxaa ku soo wajahnaa gaadhi weyn. waxay u muuqatay daqiiqadihii u dambeeyey noloshooda. Saacad kadib, Cabdisamed waxa uu soo kacay isagiiyo jiifa sariirta dhakhtarka. Ma uusan garayn waxa ku dhacay. Waxa uu hadda ka soo kacay koomo. Si kedis ah ayuu u qayliyey. Hooyo, aabbo, idinmee buu ku qaylinayay. Waxaa ku soo carartay kalkaaliyadiisa. Waxa ay ku tiri fadlan isdeji. Inuu cararo ayuu isku dayayey, laakiin kalkaalisadii ayaa dejisay. waxa aanay ku tiri wax kastoo jira waan kuu sheegayaa, fadlan isdeji. Cabdisamed waxaa ka muuqday dhaawacyo dhinaca wejiga ah iyo lugtiisa oo jabnayd. Muddo kadib markii uu isdejiyey Cabdisamedi, waxaa loo sheegay in labadiisii waalid ay dhinteen, kuna dhinteen shilkii ay galeen. Cabdisamed waxa uu bilaabmay nolol shallayto iyo oohina murugo isku xigta. Si uu dhaawaca uga soo kabto, waxaa loo daydayey cid ugu dhoweyd qaraabadiisa. Waxaa la soo helay islaan ayeeyadii ahayd oo degganayd duuleedka magaalada, si uu uga helo nolol maalmeed iyo la noolaansho waalidnimeed. Ayeeydii waxay ahayd islaan da' ah, aad bayse u jeclayd Cabdisamed. Markii uu dhaayimo soo kacay ee uu dhaymadii ka soo kacay Cabdisamedi, waxa la go'aansaday in la geeyo dugsiga, kaas oo la geeyey dugsiga primariga ama dugsiga hoose. Halkaas markii uu muddo dhiganayay, waxay isbarteen saaxiibadiisii kalaaska. Maysan noqon kuwa soo dhoweeya, waxay noqdeen kuwa ku jees-jeesa maadaamuu dadka ka duwan yahay, maadaama uu u eeg yahay qof faqiir ah. Carruurtu markay nusaacaynayaan, isagu ma nusu saaceeyo. Carruurta markay waalidkoodu imanayaan si iskuulka uga qaadaan ama ay u ogaadaan natiijooyinkii waxbarashada uu keenay, Cabdisamed ma uusan haysan waalid u qaada natiijadiisa ama geeya iskuul ee xaafadda oo u rawixiya. Ta ugu darnayd waxay ahayd in kalaaskooda uu lahaa qabqable ama ninka ugu xooga weyn kalaaska ee booska loo yaqaano oo lagu magacaabo Maxamed waxa uu ka soo jeedaa qoys lacagley ah oo taajiriin ah. Isaguna wuxuu ahaa wiil aad u jees-jees badan. Ma uusan ixtiraami jirin saaxiibadii. Waxa uu siduu doona yeeli jiray. Lacagta ay waalidkii soo siiyaan waa uu ka xoog weynaa jir ahaan. Wuu u dili jiray cidduu ku xoog weyn yahay. Cabdisamedi waxa uu ku jiray dadka uu ku xoogga weyn yahay. Waxa uu ku hayay dhibaatooyin aad u fara badan. Ta kale u qarsoonayd Cabdisamed waxa ay ahayd in ay indhihiisu ahaayeen kuwa daciif ah, si aanu sheegan karin dhibaatada ah inuu u baahan yahay muraayadda indhaha. Noloshii way socotay. Kalaaskii uu dhigtay wax la soo gaaray imtixaankii finalka ee kalaaska lagu gudbayay. Kalaasku waa kalaas hoose. Waxa loo baahan yahay in markis uu keeno si loo qiimeeyo waxbarashadiisa heerka ay taagan tahay. Cabdisamed si fiican ugama uusan arkaynin samuuradda, sidaa la ajligeed ma uusan fahmi jirin casharka haddeer la wado. Waxa uu dhegaysan jiray macallimiinta hadalka markay kor u qaadaan ee akhriyaan ayuu aad u fahmi jiray oo aad buu maskax fiicnaa. Maalin maalmaha ka mid ah, imtixaankii markii la yeedhiyey, Cabdisamed wuxuu keenay markis aad u hooseeya. Saaxiibkii Maxamed ayaa aad ugu jees-jeesay maadaama isagu ka sarreeyo. Kalaaskuu ku ceebeeyey. Hablihii kalaaska fadhiyo dhan baa ku qoslay. Halka waxa uga soo hoyatay murugo aad u fara badan. Cabdisamed waxa uu jeclaa in uu noqdo dhakhtar. Badanka qoorta wuxuu suran jiray bahladan yar ee ay sudhaan dhakhaatiirtu qoorta, si uu hami iyo dihidiilo mustaqbalka u sawirto ahayd. Markii kalaaska dibadda looga soo baxay, Maxamed waxa uu ka qaaday birtii yareeda qoorta u sudhnayd Cabdisamed si uu ugu jees-jeeso. Waa uu ka qaaday, waa uu ka kala jebiyey. Waxa uuna ku caayay in aanu meel gaadhaynin maadaama uu yahay arday hoose. Maxamed waxa uu si kasta ugu jees-jeesay Cabdisamed. Cabdisamedi waxa uu haystay dhiirigeliye, taas oo ahayd ayeeydii. Si kastoo uu dhibaato kula soo kulmo iskuulka, ayeeydii marka uu ku noqdo waxa ay aad u dhiirigelin jirtay. Way siin jirtay talooyin si uu ula tartamo qayrkii. Cabdisamed waxa uu ku hamiyi jiray in uu marun noqdo dhakhtar. Maalin maalmaha ka mid ah, maamulkii iskuulku waxa ay go'aansadeen in ardaydu joogaan ilaa casarka. Sidaa la ajligeed, Cabdisamed ma uusan haysan cid qadow keenta. Markii ardaydu qadaynayeen, Cabdisamed waxa uu
galay library-ga isagoo gaajo la ooyaya. Waxa aragtay islaan meesha nus saacaha ku samaysa, magaceeduna uu ahaa Samiira waxa ay ahayd islaan aad u wacan. Ma aysan haysan wax caruur ah, laakiin way jeclayd in ay korsato caruur. Waxay aragtay Cabdisamed oo ka ooyay library-ga. Waa ay u timid. Waxa aanay weydiisay miyaad qadaysay. Waxa uu u sheegay maya. Waa ay kaxaysay si ay cunto u soo siiso. Waa ay soo qadaysiisay. Waxa aanay u sheegtay in uu u imaado mar kasta si ay cunto u siiso. Gurigoodii ayuu ku noqday. Cabdisamed wuxuu la kulmay murugo kale oo ahayd in ayeeyadii aanay joogin. Waxa ay tagtay dhakhtarka. Waxa ay taala waadhka. Waa ay si xanuunsanaysaa. Ayeeyadii buu u tegey. ay la dardaarantay. Waxbay u sheegtay sidii qof tegayoo kale. Aad buu u ooyay Cabdisamedi. ayeeyadii waxay u sheegtay inay fiican tahay, taas oo farxad kale ahayd. Habeenkii waa u seexday. Subaxii iskuulku ku lahay sidii caadada ahayd. Iskuulka waxa laga soo baxaa casarka. Qadadii waxa uu tagay islaantii Samiira ahayd. ayeeyadii warka ma uusan haynin sababtoo ah iskuulka ayuu ku jiraa. Casarnimadii markii uu soo noqday, waxa uu arkay gurigoodii oo maran. Waxa uu orod ku tegay dhakhtarkii ay ayeeyadii taalay. waxa uu arkay sariirtii ayeeyadii ku jiiftay oo maran. Markii uu weydiiyay dhakhaatiirta, waxa ay u sheegeen in ay dhimatay oo la aasay ayeeyadii. Aad buu u murugooday. Dowladdii dalkaas waxa ay go'aansatay in wiilka la geeyo meesha lagu koriyo agoomaha. Waxa uu sheegay in alaab ay ka taalay library-gii iskuulka oo uu ka soo qaadanayo. Isagoo ka soo qaadanaya ay la socoto gabadh wakiilka ah oo ka socota xarunta agoomaha, ayaa waxa uu la kulmay islaantii qadada siin jirtay ee Samiira markii ay wareysatay waxa ay ogaatay in ay ayeeyadii dhimatay oo loo wado Cabdisamed xarunta agoomaha. Waxa ay go'aansatay in ay koriso Cabdisamed iskuulkana ku hayso. Sida la ajligeed markii iyada lagu wareejiyay, waxay siisay muraayad meesha taalay si uu iskuulkii ugu noqdo. Markii uu iskuulka ku noqday, saaxiibkii Maxamed waxa uu aad uga xumaaday maadaama Cabdisamed muraayad xidhan yahay in uu noqday arday aad u xariif ah, macallimiintiina jecel yihiin. Markii kalaaska dibadda looga soo baxay, Maxamed waxa uu go'aansaday inuu ka kala jabiyo muraayadii, taas oo rajabeel ku ahayd Cabdisamed. Waa uu ka kala jabiyay. Si islaantii Samiira la oranayay waa ay dhiirigelisay, waxaana u soo iibisay muraayad qiyaastiisa ahayd, taas oo la dadaashay. Wiilkii dabeecadda xumaay Maxamedna ka celisay. Waxa uu galay Cabdisamedi nolol aad u raaxo badan, nolol ku dhow noloshii uu ku haystay hooyadii iyo aabihii. Samiira waxay siisay farxad. Waxa ay siisay cunto iyo nolol ku filan intii ay waalidkii siinayeen oo kale. Muddo kadib, Cabdisamed waa uu weynaaday. Waxa uu bartay kulliyadii uu jeclaa in uu marun barto. Waxa uu noqday dhakhtar. Waxa uu ka shaqo galay dhakhaatiirtii waaweynaa ee ka jirtay dalkiisaas. Waxa uu noqday mid ka mid ah dhakhaatiirtii ugu muhiimsanayd ee dalkaasi joogtay. Maalmaha ka mid ah, isagoo wata shaqadiisii maalinlaha ahayd, waxa uu soo galay nin aad u murugaysan, ay ka muuqato baahi badani. Wuxuu ka murugaysnaa aabihii ayaa waxa uu u baahnaa qalliin degdeg ah. Ma uusan haysan lacagtii qalliinka, sida awgeed waa inuu lacagta meel uun ka keenaa. Si kedis ah waxa uu aqoonsaday Cabdisamed si waaba saaxiibkii Maxamed, saaxiibkii ku dhibi jiray iskuulka, saaxiibkii dhibaatooyinka badan u geystay. Waa saaxiibkiisii ku caayi jiray in aanu noqon karin dhakhtar. Cabdisamed markiiba wuu aqoonsaday, waxaana u ballan qaaday in walaalkii in aabihii uu geli doono qalliinka. Uu yaabay Maxamed, maxaad sabasan u samaynaysaa? Waxa uu ku yidhi, miyaad ii ilowday? Waa saaxiibka Cabdisamed. Aad buu u murugooday. Waa uu ooyey. waxaanu ka murugooday ficilladii xunxumaa uu samayn jiray. Maxamed waxa uu go'aansaday maalinka wixii ka dambeeyey in uu caawiyo dadka, in uu la shaqeeyo ardayda, in uu dadka ka waaniyo waxyaabaha ay samaynayaan ee jees-jeeska ah, waayo adduunkan waa labadiisa gelin. maalinka adigu hayso, saaxiibkaa caawi. maalinka uu saaxiibkaa hayana ha ku caawiyo, adduunku si uu noqon mooyaane. aad baad mahadsantihiin. intaas sheekadu inooga joogaysa.